السلام عليكم ما توحن بلابي دونا كورسada cusbeyd ee xagga hoose ee xisaabteenu kasoo bilaabaynay bayska marka xisaabtan waxaanu insha Allah ka bilaabi doonaa u qaybinta ama isu qaybinta tirooyinka marka doonayso inaad isu qaybinta aad barato waana si fiican u taqaanid xisaabaadka ka horeeya sida isu geynta iyo kala goynta iyo isku dhufashada saddexda xisaab ee ka horeeya waana si fiican u taqaan maxaa yeelay saddexdaba waa lagu shaqeynayaa marka tusaalooyinkan hadaynu eegno shanta tusaale leena siiyay shanta waxaan doonaynaa inaynu mid uga shaqeyno labadii baa la isu qaybinayaa Soomaaliya koobaad marka aynu eegno oo 4 loo qaybiyay laba Soomaaliya marka hore waxaad sameynaysaa radical baad sawirnaysaa xisaabta radical baad inoo gelinaysaa radical marka sawirato 4 ka hore gudaha gelinaysaa labadana dibadda uga saaraysaa marka tirada marka 4 lagu dhufto 4 siya waa maxay tiradaas raadinaysaa waxa weeye laba marka lagu dhufto ila siinaya 4 waa min 2 marka min 2 baynu saareynaa 2 markaynu 2 kala ku dhufano waa 4 marka 4 iyo 4 ka baad kala goynaysaa waxay jawaabteenu noqon tahay 0 ansarku waxaynu leeyahay tirada xagga sare dhigatay ee 2 ay jawaabtu ku ramin tahay labaad hadaynu imika bal eegno 0 baynu soo baxay ansarku 2 baynu la mid yahay labaad aynu eegno marka hore waxaanu radicalka aynu sawiranaynaa 8 baynu waxaanu qaybinaynaa 2 okay ama tiradan gudaha taalo waxaan oranaa lacag u qaadato dibadda taalna waxaad u qaadataa dad laba nin 8 lacag 8 shilin oo qayb min 4 bay helayaan 4 xagga sare ka saaro 8 iyo 8 ay soo kala jar 0 bay la mid tahay balka imika saddexaad hadii aynu ku sii faahno aynu ka shaqeyno waxaan sameynaynaa 10ka hore ayaad gudaha gelinaysaa radical horta sawiro 10ka markaad gudaha geliso labadana dibadda uga saaraysaa marka laba qof 10 u qayb min 5 bay helayaan 5 tii laba ku dhufo 10 iga soo jar min 0 bay soo baxaysa marka jawaabtu min 5 bay helayaan 5 sare ayaa jawaabtay afraadaan eego 12 marka gudaha geliyo labadana dibadda uga saaro tirada marka laba lagu dhufto 12 siisa waa min 6 bay helayaan 6 laba ku dhufo waa 12 iga jar waa 0 ansarku 6 ka sare ayuu ila mid yahay shanaadka ugu dambeeya hadii aynu eego laba nin 16 shilin u qaybi 16 waxaan aynu gashano radicalka oo shanaad 16 marka radicalka geliyo labadana dibadda uga saar laba nin 16 u qaybi tirada marka laba lagu dhufto 16 siisa waa maxay waa 8 xagga sare igu saar 8 laba igu soo dhufo waa 16 ii soo kala jar min 0 bay soo baxday marka laba nin marka 18 shilin loo qaybiyo min 8 bay helayaan marka ansarku 8 buu ku la mid yahay halka ayaan ku jooji doonaa hadii alla idin macashirkeena maanta